qodobka labaad waxyaabaha soonka jabiya wey. haddaynu soo ururinno waxaan ku soo ururin karnaa 5 soonka jabisa. haddii la faahfaahiyo way badan karaan, laakiin inaan kuu soo koobaan doonayaa markii faahfaahinteeda loo baahdo waktigeeda wey. waxaa koowaad ee soonka jabiya alridda, qofku diinta inuu ka baxa wey. muslim buu ahaa, uu soomanaa, hadduu gaaloobo oo diinta ka baxo soonkaa waa jabay. maxaa ka dhalanaya? hadduu isla maalintaa dib u soo islaamo oo soo noqdo, maalintaa wuu qallayn oo way jabtay soonkeedii. saas darteed islaamnimadu shardiba idin u asaxo, gaalnimaduna way jabisaa hadday dhexda ka timaado. haddayba jirtay markii horena inuu ansaxay diidaa. taas waa qodobka koobaad. qodobka labaad waa inuu qofku kas isaga matajiyo. qofku mantag hadduu ka yimaado 2 mid unbuu noqdaa: inuu soo dhaafo osan iska keenin, ama markaa hayn waayo, ama iyadoo isku taxallujininba inuu hayo, ama kadis baa kaga yimaado. inuu soo dhaafo iyo isagu inuu iska doondoono iska keenkeeno. hadduu soo dhaafo soonkiisa waxba uma dhimo, hadduu isagu iska keenkeenase soonka waa jabaa. wuu jabaa macnaheedu waa dambaabtay maaha. inaabad xanuunsantooda cudurdaar leedaha dhici karta, laakiin soonkii wuu jabayaa wey. qofku kas mantag saa keena. nabigaana saa yidhi sal lla alay slam, qofkii matag soo dhaafaayey wax qadaa laguma leh, qofka iska matajiyana ha qadeeyo ayuu nabiguna faray sal lla alay slam. qodobka saddexaad ee jebiye soonka waa gabadhu inuu dhiiggii caadadu ku dhaco ama kii umusha. dhiiggii caadada iyo kii umusha midkood hadduu ku dhaco ayadoo sooman, soomkaasi waa jabayaa. iyadoo dembi kuma laha, laakiin soomku waa jabayaayo marka hore hadday caado qabto ama umushii dhiiggii ku jirtana kama ansaxo. hadduu gadaal kaga yimaada iyadoo soomanaydna soonkaasi waa jabaa. intaasi waa 3. qodobka afraad waa cunniya cabitaan toos ah ama dadban. cunnadii cabitaanka toosihii waa kuwii laga qaato afka oo meesha caadiga iyo dabiiciga laga qaato. haddii qofku wax cuno ama cabo, soonkiisu waa jabaya. cunniya cabitaan dadbanna waa wixii cabitaan iyo cunno ah ee laga qaato waxaan afka ahayn. waa sankii biyaha kor loogu jiiday ay dhuunta ku dhaceen, ama dhagaha haddayba u duleelaan intii wax lagu shubo ay hoos u dhaadhacaan, ama jirka kale meelaha dhiigga ah nafaqada iyo faleebooyinka la ragmariyo ee booska cuntada iyo cabitaanka galana. waxaan leenahay waa cunniya cabitaan dadban oo toosna afkii caadiga ahaa loogama cunin oo loogama cabin. wixii ay qabanaysay cunnada iyo cabitaanka afka laga isticmaalayna way qabanayaan. iyagana waxaan ku soo ururinaynaa cunniya cabitaan toos ah ama dadban. qodobka 5aad ee soonka jabiyaay waa gudashada shahwada tooska ah iyo midda dadban. shahwada tooska gudashadeedu waa xiriirka gogosha iyo galmada ee rag iyo dumar dhex mara, ama xalaal asalkiisii ahaado dad xilo isqaba ha noqdaan, ama xaaraan hawsii dheeraato oo gogol dhaaf ha noqdo. marba hadduu xiriir gogol iyo galma yimaado, waa gudasho shahwadii oo toos ah. soonka way jebisaa. iyadoo dadbanna way jebisaayo hadduu qofkii shahwadii isaga keeno si kale
oo waxaa fuqahadii carabigu ay yidhaahdaan istimnaha ama jalda camiira yidhaahdaan, soomaaliduna siigaysi ay yidhaahdaan wey. qofku hadduu shahwadii isaga keeno fal isagu uu leeyahay, sax galma iyo gogol toosa ma aha, laakiin waa gudasho shahwo oo dadban weeye. sidii cubnadii iyo cabbitaankii dadbanaa ay cunnada iyo cabbitaanka tooska ah lamidka u hayeen, ayay middanina shahwadii gudashadeedii iyo galmadii tooska ahayd iyadoo gudasho dadban ah weeye, oo isla macnihii iyo baahidii daboolaysa. saa darteed midda tooska iyo midda dadbaniba soonka way jebiyaan. qodobkaa waxa soonka jebiye ah, waxyaabaha soonka markay jebinayaan 3 arrimood baa la ilaalinayaa, oo ah in la eego qofkii misantaa mid ka mida, shantaa mid ka mida markuu ka dhaco, marka laga reebo xaydka iyo nifaaska iyo riddada iyo diinka baxa, mataga, cunnada iyo cabbitaanka iyo gudashada shahwada. markay soonka jebinayaan 3 arrimood ee soo socda waa la ilaalinayaa. mararka qaarkoodna riddadaa soo gelaysa haddii xukunkeedii baan sugnaanayn. kow, qofku waa inuu khiyaarkii ku sameeyo. haddii la qasbo waxba kama jabaan soonkii. qasab ku gaalow haddii la yidhaahdo, qasab galmada iyo gogosha ku samee haddii la yidhaahdo, qasab cunno iyo cabbitaan ku samee haddii la yidhaahdo, soonkiisu waxba ma jabo, ousan khiyaar lahayn. 2, waa inuusan halmaansanayn oo ulakas uu u sameeyo. hadduu cunoo caba isagoo halmaansan soonkii, ama uu galmi iyo gogoshi iyo xashahwa gudashadii dadbanaydba sameeyo isagoo soonkiisii halmaansan, ama iskaba matajiya isagoo soonkiisii halmaansan, isla soonkiisii waxba u dhinmi maayaan. oo nabigaa sheegay sala allahu alayh ali wasalam inuu qofkii cunaya ama caba isagoo halmaansan uu soonkiisa dhammaystiranaya. qodobka 3aad ee ilaalinta u baahan qofku waxaan soonka inuu jebinaya inuu yaqaan wey. hadduu sameeyo waxyaabaha qaarkood isagoon u haysanin soonkii inuu ka jabayo, ama wax soonka jebiyaba ay yihiin, soonkiisi ma jabayo. saxaabada nebiga qaar sameeyey xataa yatabayana lakum alkhayط اlabyadu min alkhayط اlaswadi min alfajr, ayay qaarkood sii cuneen oo sii cabeen iyadoo waagii beryey ilaa ay kala gartaan guri aanan lahayn labada xariig ee madow iyo caddiinka. soonkii soo qadeeyana lama dhihin. isla qodobka waxaa kaloo la xiriira 4 arrimood oo aan soonka jebin, laakiin dadku laga yaaba inay moodaan soonka inay jebiyaan. kow, waxaa ka mid inaad istoobto. waxaa lamid inaad dhiig iska qaado ama qof kale u shubto, soonka ma jebiyo. 2, inaad qabaysato. haddaan biyo kugu cararin oon afkiiyo kaa gelin sankiiyo hoos kugu dhaadhicin, soonkaagama jabayo. waxaan soonka jebin in waagu kuu beriyo adoo janaabo qaba, janaabo habeenkii ahayd say dooniba ha ku timaadee, adoon weli ka qabaysan waaga hadduu kuu beriyo soonku kaama jabo. ugu dambayn, adoo maalinimo hurda hadday intuu riyoodo qofku biyi iyo shahwadii ka timaado, isagoo hurda wixii ka yimid waxuu kas u sameeye ma ahano, soonka ma jebiso. intaasna cashirkeennii 2 ayaynu kusoo gabagabaynaynaa oon kaga hadlaynay soonku sideebuu ku asaxaa, maxaase soonka jebiya, iyo masaa'il dhammaystirahoo la xiriiray. intaan cashirka 3aad isugu imanayno, sidaa iyo nabadgelya. wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu.